السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا waa idin salaam meel walba adduunyada ka joogtaan magacayga waa Xafsa haddii taa markii kugu horreysay janaalkii soo booqanid fadlan subscribe ii saar hore hadda ila joogto waa ku mahadsan tahay maanta waxaa jeclaysta rooti inaa idinla qaybsaa si fudud loo sameynayo weelka waxay ugu jirto 2 koob oo bur ah weelka kale waxay ugu jirto 3 qaado badar ah soo dhalaali weelka kale waxay ugu jirto nus koob caano ah 2 xabo oo ukun ah ukunta ma isticmaalaya qaado oo leebito qaado cusbo iyo qaado sokor ah intaas ayaa ka sameyn doona cajiinkan ayaa qasayna ukunta xabad ayaa ku daraa xabada kalena qaybta cad ayaa ka isticmaalaa qaybta oo jaalaha ee meel aa dhiganaa qaybta yelowga meel aa dhiganaa hadhow rooti korka mari rabaa kadibna nus koobkaas caano iyo 3 koob oo badarka bas ku qasa biyo kale uma baahno halaas 2 koob oo burka ku filan tahay waa cajiimi doonaa markaa cajiimi kadib aad qadar 15 daqiiqo dhex gelinaa kadibna bac ayaa kor ka saari doonaa hal saac ayaa khamiirina hal saac kadib insha Allah waa arkeena hadda cajiinkeena waa soo cajiim 15 daqiiqo kadib hadda bac ayaa kor ka saaraya mara ayaa ku daboolaya hal saac ayaa khamiirinaya intuu hadda cajiinkan oo khamiiraya waxaa sameysan doona hilibka aan dhexda rootiga kaga gelin lahayn hadda saliid ayaa dabka soo saartay saliid yar oo iisoo kululaatay basal ayaa ku darsanaya kadibna hilibka ku darsanaya kadibna qudaaro iyo xawaajiyada u isticmaali lahaa markay bislaato kadibna waa arki doonaa rootiga ayaa dhexda ka gelinayna insha Allah isla socod wanaagsan hadda hilibkan dhacaan yar ku jirto dhacaankaas inuu ka khalalaa rabaa waayo rootiga dhexda inuu qoyaan zaid ka ahaado ma rabi wax yar u dhiman markuu khalalo kadib insha Allah ka dajinaa waa diyaar uu bislaaday hilib shishid dab badan uma baahno ciyuu bislaana hadda waa diyaar wuu bislaaday waa ka dajinayaa kadibna wax yar intuu ka qabo waa sugaa kadibna insha Allah rootigeena guda galeena hal saac kadib cajiinkan uu noo soo khamiiray hadda waxaa meesha ayaa bur yar marsanaya kadibna waxa uu qaybin doonaa 8 xabo uu noqonaa 2 koob oo bur ah kadibna waa ku kuusa kadibna fidinaa hilibka dhexda gelinaa kadibna foornada ayuu aadi doonaa foornada wuxuu ku jiri doonaa qadar 25 daqiiqo ah markuu ka soo baxo insha Allah isla arki doona rootigan inaba caadi ma aad u macaan badan yahay casho fudud casariyo wuxuu diidaa malaha
rootigayga waa soo dhameeyay. Hadda waxaan isku qasayaa ukunta qaybta yelowga iyo caano. Hal qaado caano isku qasaa kadibna rootiga ayaa kor ka marinaa. Kadibna calaaduul wuxuu aadayaa foornada markuu ka soo baxo insha Allah siduu kusoo baxo isla arki doonaa. shan iyo labaatan daqiiqo kadib foornada waa kasoo saarnay maasha Allah sidaan quruxda badan ayuu rootigeenu kusoo baxay. Waa rooti safti jileec kaala iska arag macaan badan casariyo casho fudud wax uu diidaa male aad u fudud yahay qof walba sameyn karto. Fadlan hadduu fiidiyoon ku cajabi like iyo saar haddii ra'yi qabti commentiga nagu soo wadaag asxaabtaada la sii wadaag like hanaga baqiilin subscribe hadduu ku ahaan saar. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.